السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنا ونقصد داودياشنا قيمها يقايها نقمد ميل باجوكتان waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah waxaan ku baran doonaa qaabka dokumentiga Word-ka ah qoraalkiisa looga ilaaliyo in wax laga bedelo ama lagu soo kordhiyo qoraal cusub. ilaalinta dokumentiga Word-ka ah aad bay muhiim ugu tahay gudaha kombiyuutarkaaga ama meel ka baxsan oo dibadda ka ahba. mararka qaarkood marka la qorayo dokumentiga waxaa si weyn ugu baahan tahay in la ilaaliyo sirta dokumentiga iyo in laga hortago in dokumentigaaga wax laga bedelo iyadoon lagu ogeysiinin ama aadan ka warqabin. haddaba Microsoft Word 2010 wuxuu ku siinayaa ikhtiyaar aad dokumentigaaga kaga ilaalin karto in wax laga bedelo xogtaada adigoon ogolayn, taas oo yareynaysa suurtagalnimada in xogtaadu noqoto mid dayacan amni badanna aan qabin. waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu xafido dokumentiga, balse muuqaalkan waxaan diiradda ku saari doonaa sida loo xoojiyo xadidaadda wax ka beddelka dokumentigaaga. soo dhawo mar kale daawade. haddaba si aan hawshan u fulino marka hore waxaan u baahanahay inaan soo furno documenti Microsoft Word ah. waxaad imaataa Start button, kadib halkan waxaad ku qortaa Microsoft, kadib waxaa kuu soo bixi doona Microsoft Word. laba jeer ku dhufo oo double click dheh. daca markuu sidan kugu soo kacno waxaad imaanaysaa qaybtay ku qoran tahay review. halkaas ayaad ku dhufanaysaa, kadib waxaad kasii dooranaysaa qaybtan ee ku taalo restrict editing. halkaa ku dhufo oo jogsi. waxaad ka dooranaysaa number 2 oo ay ku qoran tahay edit restrictions. halkaas ayaad tig saaraysaa, kadib qaybtan optionada waxaad ka dooranaysaa fill in forms. kadibna qaybtan saddexaad ayaad leedahay yes start enforcing protection. kadib waxaad gelinaysaa halkan password. qaybtan labaadna mar kale ayaad ku celinaysaa passwordkaaga, kadibna waxaad leedahay okay. waxaan rabaa inaan tijaabino in qoraalkayga wax lagu dari karo ama qayb ka mid ah qoraalkan la tiri karo. anoo isticmaalaya keyboardkayga ayaan rabaa inaan ku daro qoraal cusub. halkan waxaa ka muuqata in keyboardka qoraalkiisa uusan shaqaynaynin. dabcan imanka waan awoodi la'ahay inaan ku daro qoraal cusub, sidoo kalena ma awoodo inaan tiro qoraalka qayb ka mid ah. intaa waxaa dheer ma awoodo qoraalkaygan inaan ka sameeyo copy. waad aragtaa iminka in copy iyo cut ay xiran yihiin isla markaana aanay shaqayn doonin. taa macnaheedu waxay tahay marka in aad loo adkeeyo isla markaana laga ilaaliyo qoraalkaaga in wax laga bedelo, qoraal cusub lagu soo kordhiyo, qoraalkaaga hore qayb ka mid ah la tiro, ama isagoo dhan la baabi'iyo, ama in qayb yar ama qoraalka guud ahaan laga sameeyo copy, ama in la qaato xogtaada. dabcan haddii aad u baahan tahay in qoraalkaaga laga qaado xayiraadda isla markaana laga dhigo qoraal caadi ah oo la koobiyeyn karo ama la tiri karo ama lagu soo dari karo qoraal cusub, kaliya waxaad ku dhufanaysaa qaybta ay ku taalo stop protection. kadibna waxaa kuu soo boodaya oo kuu soo baxaya lambar sireedka. halkan waxaad gelinaysaa lambar sireedkaaga. intaa kadib waxaad leedahay okay. iminka qoraalkaagii waa laga saaray xayiraadda, waxaan la awoodaa in la koobiyeysto ama la tiro ama in lagu soo kordhiyo qoraal cusub. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka subscribe inoo saar, muuqaalkana like inoo dheh, waayo like-tu waxay nagu dhiirigelinaysaa dadaalkeenna, waxayna naga caawinaysaa in muuqaalku sii gaaro asxaab badan oo u baahi qabta kana faa'iidaysan doonta insha Allah. mahadsanid in ka badan milyuun jeer.